كل نفس إن لله وإنا إليه راجعون waxaa maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada Garowe ee General Khaliif Ciise Mudan oo ah haliyay Soomaaliyeed haldoor reer Puntland dadka iyo dalkaba u soo shaqeeyay waxa ka qayb galay aaska madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni oo weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dawladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash gudoomiyaha baarlamaanka ee dawladda Puntland mudane Cabdirashiid Jibriil Yuusuf Cawl gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Abukaata Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Ismaaciil Maxamed Warsame waxaa ka qayb galay xubnaha golayaasha kala duwan ee dawladda Puntland ee wasiirada leh ee xildhibaanada leh ee garsoorka leh ee golaha saraakiisha ciidamada leh la taliyaasha madaxweynaha leh odayaasha dhaqanka leh sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ee reer Puntland leh dad aad u tiro badan ayaa aaska Allahu naxariiste General Khaliif Ciise Mudan ka qayb galay waxa uu ahaa haliyay Soomaaliyeed oo reer Puntland ah oo aad looga yaqaano dadka iyo dadkaba ka soo shaqeeyay dawladnimada Soomaaliya soo noqday saraakiishii Soomaaliyeed aadka loo yaqaanay ahaana dadkii ka shaqeeyay dhismaha dawladda Puntland oo ka soo noqday wasiirka amniga oo sidoo kalena hadda uu mar noqday isu sharaxay jagada madaxweynaha dawladda Puntland waxa uu hadda ahaa la taliyaha madaxweynaha waxa uu sidoo kale ahaa xubin kamida gudida aadka uga shaqeeyay shaqada la bogaadiyay ee dubahabeynta iyo dibudhiska iyo tirakoobka ciidamada dawladda Puntland ee meel wanaagsan maraya General Khaliif Ciise Mudan geeridiisu waxa ay ula mid tahay ummadda Soomaaliyeed ee dadka reer Puntland ba haliyay inay waayeen aad u qiimo badan waxa sidoo kale tacsida iyo maaragtay aaska ayana joogay qaraabada iyo qoyskiisii iyo caruurtiisii oo dabcan ayana salaadii janaasada halkaan ku tukaday waxaana lagu aasay qabuuraha magaalada Garowe waxaan u tacsiyay dawladdu hore oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha kale ee dawliga ay tacsi rasmi ah u direen hore geeridiisa ugana tacsiyeen ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland ba haliyaygaasi baxay waxaan tacsida iyo tiiraanyada aan la wadaagaynaa eheladii qoyskii iyo qaraabadii iyo caruurtiisii uu ka geeriyooday Allahu naxariistay Khaliif Ciise Mudan taariikh dheer oo wanaagsan buu lahaa oo dabcan aad warbaahinta dawladda aad ka aragteen oo si wanaagsan loo soo gudbiyay waxaan uga mahad celinaynaa dadkii halkaan maaragtay isugu yimi iyagana inay aaskaasi ka qayb galaan oo meel walba oo Soomaaliya ka yimi oo dalka iyo dibadiisaba ka yimi isagana Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu hooygiisa ka dhigo Jannatul Firdawsa waan u ducaynaynaa Ilaahay u naxariisto maalin jimcaha la aasaya oo godgelaya oo maaragtay dad badan ay ka qayb galayaan oo muujinayso wanaagiisa meel wanaagsan baan u rajaynaynaa iyo hooygii Jannatul Firdawsa in hooygiisu noqdo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun